mareykanka in la iska galay noqotay markaad gashin sharcigaada iyo shaqadaada isku saaran baa lagu siiniyaa oo hadda lagu dhawaaqay aniga wax ku celinaya ma garanayaan adoo lacag haysto fiiri tusaale ahaan milmaanka iyadoo Soomaaliya joogto maanta mareykanka joogto oo sharci haysta ay berina على تهريب ولا تهريب ويا إن شاء الله ما شاء وجهنا مركا جارنو أنيسو شيء الدونا وبضلنا هاي نصعد من أحسن عادين نصوب قبل نوصل تهريبيات يا روي تهريبتيو لا لنتيت كلامي إذا داود muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa arinta malyuumaanka oo barta social media hadda qabsatay si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanaya gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like tala dhacayo wixii fikirkaaga ee commentiga noola wadaag malyuumaanka oo dalka Mareykanka markay gashay oo waxba rafaad aanan marin oo si raaxa ku tagtay hadda ummadda Soomaaliyeed oo idil sida muuqaalka ka arki kartid daawade waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u badan oo iskugu jira fanaaniin Soomaaliyeed iyo dad baraha bulshada caanka ah oo hadda tahriib dhankaasi dalka Mareykanka u galay qaarkoodna laga yaabo in la qabto ama la soo celiyo dib loo soo celiyo hadii gacanta lagu dhigo maadaama bad ay hadda ku jiraan ee arintoodan bariska ay taagan tahay maadaama barihii ugu dambeeyay malyuumaanka ee dalkaas Mareykanka markay gashay isbedelo aad u badan ay sameysay ay hadda dhalinyarada Soomaaliyeed oo idil ay soo dhiiradeen wixii fanaan Soomaaliyeed ahaa iyo dadka baraha bulshada caanka ka ah kulligoodaba ay isdhiibeen ay dhaheen malyuumaanka dalka Mareykanka way tagtay adinkana waa tagi doontiin waxba nigama halaabayo ay tahriib gala ee doon isku shuba sida muuqaalka aad ka arki kartid daawade waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u badan oo jaakada badda ay u xiran tahay oo doon saaran doontoodana sikin walba ay gadoomi karto ama cilad ay ku imaan karto doonta ay saarayeen doon alwaaxa ay tahay maadaama fanaanada la leeyahay malyuumaanka ee dalkaasi Mareykanka gashay isbedelaadka aadka ugu badan ay sameysay ay tahay ayadoo iska baashaalaysa iyo raaxo badan iyo dalkaasi Mareykanka dadkii idilna hadda ay ku dabadeysanayaan aw baraha bulshadana oo hadda ay saacadii ugu dambeeyay muuqaal la keenay oo la leeyahay dadkii idil waxay ku dabadeystay malyuumaanka ayagana tahriib ay soo galeen oo waxay rajeynayaan in dalkaasi Mareykanka laga qaabilo oo haddana ay si nabad ah ku gaaraan maadaama ay kulli wixii fanaan iyo wixii baraha bulshada caanka ee qaarkood ay doon isku soo wada shubeen ee rajeynayaan dalkaasi Mareykanka in ay mar dhow cagta ay soo dhigaan maadaama malyuumaanka barafaad dheer ee tartiib dalkaasi Mareykanka ay cagta u soo dhigtay ayagana hadda ay rajeynayaan in ay si jabi degan ah dalkaasi Mareykanka cagta ay ku soo dhigaan muuqaalo ayaan kula wadaagi doonaa rafaadyo ay ummadda Soomaaliyeed oo idil ay marayaan dadka baraha bulshada caanka ka ah iyo dadka Soomaaliyeed oo idil ayagoo mar xataa oo qatar ay xaaladooda galayso oo la qaban rabo ay gambanayaan ay gurguuranayaan duur cidlana mar ay ku dhex lugeynayaan marna ay badba ku dhex jiraan ee doon alwaaxa saaran yihiin soo dhawow daawade muuqaalo ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow daawade mareykanka in la iska galay noqotay markaad gashin sharcigaada iyo shaqadaada isku saaran baa lagu siiniyaa oo hadda lagu dhawaaqay aniga wax ku celinaya ma garanayaan adoo lacag haysto fiiri tusaale ahaan milmaanka iyadoo Soomaaliya joogto maanta Mareykanka joogto oo sharci haysta ay berina sadsan way يا روي تهريبتيو لا لنتيت كلامي على تهريب ولا تهريب ويا إن شاء الله ما شاء وجهنا مركا جارنو أنيسو شيء الدونا وبضلنا هاي نصعد من أحسن عادين نصوب قبل نوصل